khadka si toos ugu jiro oo ay la xidhiidhay warbaahinta halbeeg garad cabdisalaan xasan maxamed oo kamid ah simada dhaqanka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo ku sugan magaalada Muqdisho oo waxay kamid ahaayeen simadii ka qayb galay aaska Allah u naxariistay Professor Cali Khaliif Galeyd garad ku soo dhawo warbaahinta halbeeg ku salaamaya anaga fiicanahay Allah u naxariistay Cali Khaliif aaskiisa ka qayb galnay anagoo meelo badan sabanimi jigjiga ka yimi oo garaashaan hogaaminayo waqti iyo garaad wiilwal iyo rag kale oo dhaqan iyo wasiiro isugu jira dowladda deegaanka ka socda anaka oo kamid garowe oo hogaaminayo maaragtay madaxweyne ku-xigeenka madgaraas iyo waqti kale oo la fashilmay iyo wasiiro iyo xildhibaano aaskan isugu nimid dowladda Soomaaliya waxay u samaysay aas qaran wasiiraha loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiir bidhaan kalluumaysiga ay kamid yihiin iyo rag kale askaran baa saxaafadda ka aragteen loogu sameeyey Allah u naxariisto waa dhintay annaguna maxaa la yidhaahdaa heelahaan baan maaragtay ugu nimi meelaha isaga nimi waxaan la kulannay xalayto guriga Qorsof aaskii iyo caruurtii iyo tacsidu taalo marka halkaasaa lagu soo gabagabeeyey caawa oo saad meeliyada ka arki doontaan caawa aniga iyo Ugaas Cabdullaahi iyo Garajaama Garaad Cali iyo odayaal kale iyo xaaskii iyo laba caruur dhalin walaalkiis saafka Khaliifad baa halka isugu ehelka ah guriga xaafad baa loo yeeray xaafadda waxaa looga mahadceliyay sidii wanaagsaneyd aasku u dhacay ama se qolada jigjiga dowladda deegaanka iyo madaxweynaheeda waa loo mahadceliyay si ay usoo maaragtay aan qabteen meydka waa la dhimanaya laakiin shay meydka ka yeeleen waqtigan usoo dareen usoo ambabixiyeen annaguna markii halkan la keenay maaragtay aaska qaran loogu sameeyey oo dowladda Soomaaliya madaxweynaheeda aad iyo aad baa loogu mahadceliyay isagana aad baa loogu mahadceliyay dowladda tan waa gartay waxa kale garad marxuumka waxaa la sheegay in baaritaan labaad lagu sameeyey oo magaalada Muqdisho markii la keenay ma jirtaa taasi adkana way jirtaa dadka tiin baa la geliyay leeyahay maaragtay waa la sameeyay ama wax lamida marka xamar la keenay midka lafta dhacaan laga qaaday isla markaana jawaabtii waa loo soo celiyay waxaad meedeeda ka arki doontaan Garajaama Garaad Cali oo faahfaahinaya sida wuxuu dhaceen inuu leeyahay siyaasad in looga faa'iideysto maaha marxuumka oo dadku ay maaragtay qof wala wuxuu doona ku hadla maaha ninka bashba u dhintay xanuunkaas u dhintay positive coronavirus ayuu ka noqday jigjiga iyo xamarba Allah u naxariisto waa dhintay sidaasaana lagu qancay xamarna waa lagaga sameeyay baarista jawaabtoona loo soo diray waa garteen garad waxaad kulan la qaadateen madaxweynaha dowladda federaalka marka si gaar ah iyo caylada iyo uu qaabilay xalayto wasiir bidhaan iyo Garajaama Garaad Cali baan ku dano raacay anagu ma raacin laakiin saad meediya ku aragteen wuu tacsiileeyay wuuna maaragtay waana isu mahadceliyay wuu mahadceliyay waa gartay Ilaahay u naxariisto marxuumka fariinta dadka deegaanada Sool iyo Sanaag aad u direysay garad maxay tahayna waxaan u dirayaa Cali waa dhintay siyaasi weyn buu ahaa oo rugcada ah oo maaragtay weyn buu ahaa maxaa la yiraahdaa dadkuna waa la xagan jiray oo nin jeclaa iyo nin maaragtay aan nabaaban waa dhintay waa maaragtay professorkii madaxweyne Khaatumo marka ana waxa la soo cafiyo oo qof kasta ay wax isku maaragtay sameeyaan ama isku qabteen afiskaas wax kale la soo cafiyo anagu cafinay waa isla wada cafiyo umada faraha badan way cafiyo Allah u naxariisto la soo cafiyo aan leeyahay ana la isku tashado insha Allah dadka isku tashadaan baa leeyahay